Warar dheeri oo isdaba jooga ayaa ka soo baxaya duufaano xoog leh oo shalay ku dhuftay magaalada Leersom ee koonfurta dalkan Holland. Duufaantan oo roob sidatay waxa ay daqiiqado yar oo kooban ka da'day tuulo ku taala gobolka koonfureed ee magaalada Leersom, waxaana ay halkaasi ka geysatay khasaarooyin isugu jira dhaawacyo iyo burbur hantiyadeed intaba. Magaalada Leersom waxaa ka dhacay duufaan xooggan taas oo dhaawac uu ka soo gaaray tiro 4 qofood oo dadka deegaanka ah. Waxaa la sheegay in dhaawacyada qof ka mid ah uu yahay mid aad u daran, halka 3 kalena dhaawacooda la xaqiijiyay inuu yahay mid aad u fudud. Duufaantan oo qaab xooggan oo culus oo cabsi wadata ku bilaabatay waxa ay sababtay in guryaha qaarkood uu saqafkii kore ka haado. Gabi ahaanba waxaa burburay muraayadihii guryaha, waxaa sidoo kale jajabay gawaaridii, waxaa sidoo kale wadooyinka buux dhaafiyay oo soo wada dhacay geedihii jidadka ka baxayay. Dad qalqalsan oo deegaanka ayaa isla markiiba ku waashay inay gurmad dalbadaan, iyagoo isla markiiba wacanayay. Telefoonada ayaa noqday kuwo mashquul ah, waxaana adkaatay in si degdeg ah qof walba baahiyihiisa loogu gargaaro. Haweeneyda magaaladaasi ka talisa waxa ay xaqiijisay dhaawaca 4 ruux oo midkood daran yahay. Qolyaha ambalaasta ayaa isla markiiba meesha soo gaartay, waxaana degdeg dadka lagu amray in ay joojiyaan barbecue-gii ay isticmaalayeen xilli lagu jiray summer, taasoo dadka badankood ay isticmaalaan sababtoo ah waxaa jajabay tubooyin gaas qaada, waxaana laga baqay in ay ka dhashaan dab xooggan oo ka kaca gaaskaasi, maadaama duufaantu ay ahayd mid aad u socota isla markaana dhibaatadoodu ay saameyn fara badan geysatay. Dadka deegaanka oo qalqalsan ayaa la arkayay iyagoo guryaha ka soo cararay, waxaana lagu arkayay bannaanka ayagoo yaacaya garanala halka ay wax ka bilaabayaan. Magaalada Leersom kaliya ma ahan meelaha duufaantan ay ku dhufatay ee khasaaraha ay ka geysatay. Magaalada Tiil ee gobolka Gelderland waxaa sidoo kale laga barakiciyay dad deganaa abaartimiinto ku taala magaaladaasi oo ay ku noolaayeen ilaa iyo 20 guri oo dadkii deganaa saqafkii, maadaama uu ka haaday xalay ku hoyday meel lagu kaydiyo dadka ayagu dhibaatada soo gaarta oo gurmad degdeg ahaan loo dejiyo. Duufaantan waxaa hore uga sii digay qolyaha cimilada ka shaqeeya, waxa ayna soo saareen nambarka loo yaqaano kooda qeyl, kaasoo ah kooda jaalla ah. Waxa ayna ka digeen in dadku ay ku safraan xawaare saa'id ah kuwa gawaarida sita. Waxaa sidoo kale isbuucan sidoo kale ay taagan tahay weli cabsidaas, waxaana laga digay dadka Leersom ku nool in ay maraan wadooyinka geedaha hoostooda ah, maadaama ay laga cabsi qabo duufaantu in mar kale ay soo laabato. Fadlan wixii ku soo kordha nagala soco.